Asalaamu calaykum. Ee kulanti wanaagsan. Waxaan kuu rajeynayaa inay maalin qurux badan kuu tahay. Waxaad mar kale ku soo dhawaataa bartayda YouTube-ka. Waa idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan inaad muuqaalada u daawanaysaan isna aad subscribe garaynaysaan. Muuqaalkan wuxuu daba socdaa muuqaalka ugu dambeeyey ee aan kaga hadlayay xirfadaha. Waa muuqaal kale oo ku saabsan xirfadaha. Xirfadahan aan ka hadlayno waa xirfadaha laga qabanayo gacanta ama loo yaqaan xirfadaha gacanta. Xaqiiqadu waxay tahay in haddii aadan garanayn xirfadaha lagaga shaqaysto online-ka, haddii aadan garanayn xirfadaha sida kombiyuutarada ku tacalluqa, sida video editing-ka, samaynta graphic design-ka, photography-ga iyo xirfadahaas haddii aadan garanaynin amaba ay kugu adag tahay, waxaan jeclaystay inaan kula wadaago dhowr xirfadood oo aad maaragtay gacanta ka qaban kartid waxna aad ka soo saari kartid. Ka hor intaan xirfadaha u galin waxaa laga yaabaa inaad aragtid timakii oo bidbidaya. Halkaa muraaxad ayaa igaga shidan. Waxaan ku jirnaa waqtigii kuleelaha, marka waxaan rajeynayaa inaad ila fahantid. Xirfadahan aan kula wadaagi doono waa xirfadaha ka qabanaysid gacanta waxna aad ka soo saari kartid haddii aad bedeshataa fikirkaaga ee aad weliba qaab professional ah aad isku diyaarisid. Maantu aad iyo aad ayay u fududahay in skills ama xirfado aad baratay aad wax ku soo saarto. Kaliya waxay kaaga xiran tahay waa fikirkaaga iyo la tacaamulka dadka. Labada haddii aad isku darsatid waxaan hubaa waan ku ballan qaadayaa in xirfadahan aad wax ka soo saari kartid. Xirfadda koowaad aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay way jiri karaan dhalinyaro ku shaqaysta, laakiin waxaan kuugu dhigi doonaa qaab ka duwan qaabka dhalinyarada deegaanka ama dalka ama meeshaad ku sugan tahay ay kaga shaqaystaan. Xirfaddan waa xirfadda tubiistanimada. Waa xirfadda tubiiste, waa xirfadda gelinta biyaha ama dayactirka guryaha markaa dadka biyaha loo geliyay. Xaqiiqadu waxay tahay markii guriga qofka biyo loo soo geliya ama kambaniga u soo geliyay waxaa ku dhaca cillado, waxaa qabsada cillado. Cilladahaasi waxay noqon karaan in ay shaqay waayaan markaasi tubada ay biyaha ka isticmaalayaan, in markaasi cillado degdeg ah ay ku imaadaan, in markaasi ay jabto tubadii biyaha reerka siinaysay. Marka in xirfaddan tubiistinimada aad baratid maanta waa muhiim. Maanta aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Oo waxaa la sheegaa dalka markii tuba ay reerka jabto in ay waqti qaadato in tubada reerka loo dayaco, inay waqti qaadato inay kambaniga intay la xiriiraan ee shaqaale u soo raadiyaan ama shaqaale u soo diraan si hawsha ay ugu fududeeyaan. Marka haddii aad xirfaddan baratid waxaad access u yeelanaysaa in aad customer-ka ama macmiilka cilladda degdegga ee ku imaatay aa markaa u xallisid. Marka xirfaddan tubiistanimada baro, waqti geli. Markaad waqti gelisidna waxaad samaysaa aad ku dadaashaa in aad maalgelin isku samaysid. Ma dhamma $100 ma dhamma. Inaad qalab soo gadatid, inaad maaragtay isku diyaarisid qaab xirfadaysan, qaab professional ah oo ka duwan qofka tubiistaha kale ah. Ila socotaa waayo dareyskaaga iyo qalabkaaga iyo qaab fiisikaad u muuqata ama qaab muuqeedkaad u muuqatid ayaa dadka markaa qancin kara, ayaa dadka qancin kara. Marka mar walba u muuqo qof professional ah oo diyaarsan oo agabkiisu dhammaystiran yahay, dareyskiisana markaasi uu dhammaystiran yahay. Weliba waxaad ku dadaashaa oo aan kugula wadaagayo xirfaddan in dharkaagu uu nadiif ahaado. Haddii aad soo iibsan kartid dhowr lebiska iyo maaragtay kabaha, haddii aad iibsan kartid in aad iibsatid, in always aad u muuqatid qof professional ah oo xirfaddan u diyaarsan. Markaasina aad u qabatid adeegga ay dadku u baahan yihiin. Adeegga ay dadku u baahan yihiin adigoo markaa gudanaya waajibaadkaaga shaqo, adigoo customer-ka si qurux badan ugu adeegaya. Marka waxaan hubaa in haddii aad u muuqatid qof professional ah
ee aad beddeshataa fikirkaaga aad lacag ka samayn kartid. Waa very easy. Aad iyo aad ayay u fududahay. Aad iyo aad ayay u fududahay. Marka xirfadda tubiistanimada baro, maalgelin yar isku samee. Mindset-kaagana beddel. Fikirkaaga beddel. Sidoo kale waxaad beddeshaa habka dadka aad ula macaamilaysid. Akhlaaqyaadkaada ka shaqay. Dadku isku mid maaha. Kastamaradu isku mid maaha. Kastamarada qaar ayaa aggressive ah. Kastamarada qaar ayaa carab badan. Kastamarada qaar ayaa aad u wanaagsan oo si qurux badan kugula macaamilaya. Marka waxaad ku dadaashaa si aad xirfaddan wax kaga soo saaratid in aad u muuqatid qof professional ah. Inaad ka shaqaysid akhlaaqyaadkaaga, inaad ka shaqaysid sida maaragtay dadka macaamiisha loogu adeego. Marka haddii aad intaas samaysid waxaan kuu hubaa inaad wax ka soo saari kartid. Xaqiiqadu waxay tahay. Xirfadda labaad aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay xirfaddan waayadan dambe hadda gabdhihii ayaa ku soo biiray. Waqti waxaa jiray rag oo keliya lagu ogaa samaynta xirfaddaas. Laakiin waxaa farxad ah in gabdho aad u fara badan ay maanta xirfaddan ay wax ku soo saartaan. Waa xirfadda tolista dharka. Waa xirfadda dawaarnimada ama harqaanimada sidaad ku fahmaysid. Xaqiiqadu waxay tahay xirfaddan waayadan dambe aad iyo aad ayay u kobcisaa. Dhalinyaro badan ayaa wax ka soo saarta. Ayagoo ku sugan dalka iyo ku sugan qurbaha. Waana waxyaabaha loo baahan yahay in xirfaddan ay gabdhaha ay ku soo biiraan lana hormariyo. Xirfaddan waa xirfad aad lacag ka soo saari kartid. Waa xirfad aad nolol maalmeedkaada ka dhacsan kartid. Waa xirfad maaragtay aad business yar markaa aad inta u aasaastid aad marka dambe aad business weyn u beddeli kartid. Waxaad samaynaysaa oo keliya tolista dharka, naqshadaynta dharka. Intaa oo keliya ayaad samaynaysaa. Naqshado cusub oo creativity-gaaga ama hal abuurkaada ku xiran oo keliya haddii aad soo bandhigtid waxaan kuu hubaa oo aan kuu ballan qaadayaa in aad lacag ka qaban kartid. Lacag aad ka soo saari kartid. Weliba waxaad target garaysan kartaa oo aad maaragtay si gaar ah u bartilmaameedsan kartaa dadka caanka ka ah social media. Sida xildhibaanada, sida dadka social media ama content creator-ada maanta maaragtay caanka ah ee bulshada Soomaaliyeed caankay u yaqaanaan in aad target garaystid. Waayo maanta waxay jecel yihiin dadku in ay xirtaan dress ka duwan dresska dadka kale. Xaqiiqadu waxay tahay adigu waxaa laga yaabaa inaadan xiran karin dhar kale inaad ku arag dharkaad xiran tahay waxaa suurtagal ah inaad ku aragto qof kale inaadan jeclaysan. Siiba dumarka ma jecla inay lebis isku eg ama lebis isku mid ah ay wada xirtaan. Marka in qofka uu ka duwanaado ama dharka uu xiran yahay ka duwanaado dadka kale waa adiga qofka hal abuuri kara, waa adiga qofka hal curi kara, waa qofka adiga design-ka u samay kara. Adiguna sidaasi aad lacag kaga heshid. Sidaa aad lacag kaga heshid. Marka xirfaddan tolista dharka horumaro badan ayay samaynaysaa. Design-no badan ayaa ku soo kordhayay. Wax badan ayaad ka qabsan kartaa. Wax badan ayaad ka soo saari kartaa. Marka xirfaddan tolista dharka dawaarnimada ama harqaanimada fadlan ka faa'iidayso. Haystiina anigoo kana miyaa kan geli kara. Anigoo jaamacad ka baxay miyaa dawaaro noqon kara. Anigoo jaamacad ka baxay miyaa harqaan noqon kara. Waxaad soo jeed. Dadka kale siday kuu aaminsan yihiin haddii aad adigu isku aaminsan tahay waxay noqonaysaa inaad horumar gaaraysid. Waxaa jira podcast maalin weeytaan daawanayay oo muuqaal xataa waa kaga hadla wuu jiraa mubaarak hadii lagu marti qaaday. Nin ka mid ah dhalinyarada wareysanaysay wuxuu yiri inaan sawir qaado noqon jeclaa. Inaan sawir qaado noqon jeclaa. Anigoo sawir qaado inaan noqdo jecel ayaa ka cabsan jiray inaan sawir qaado inaan meelaha tago ayaa ka cabsan jiray. Marka maalin waxaan arkay dad qof sawir qaada ah, qofkaas sawir qaadaha ayaa waxaan isla imagine garay bal ninkaas sawirada qaaday shaqadiisa ayuu qabsanayaa. Haddii uu shaqadiisa qabsado anigu maskaxdayda saameyn ku yeelanaysaa. Marka guriga taga ayaa sawir qaadihiisa wax xasuusanaya sawir qaadu ah. Taa micnaha waxay tahay in dadku adiga wax aad adigu iska aamintay oo kaliya ay ka aaminayaan. Inaad adigu wax iska aaminto oo kaliya ka aamin. Haddaad adigu maanta qof shaqaysanaya wax qabsanaya iiran noqoto dadkana taas bay ka aaminayaan. Laakiin markaad adigu islaado dadku wax bay ka aaminayaan. Dadka qalbigooda kuma jirtid laakiin waxaad iska cabiratay fikirkaaga intuu la egyahay oo kaliya ayaad waxaad ku dabaqday dadka wax ka arkaan.
marka waxaad joojisaa dadka waxay kaa aaminsan yihiin waxaad adigu aaminsan tahay samey. Xirfadda saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay xirfaddan way ku yar tahay dalka ama dhalinyarada wax ku soo saarto haddiiba jiraan way jiraan laakiin aad iyo aad ayay ugu yar tahay. Xirfaddan waa xirfadda la yiraahdo agabka yaryar ama decoration-ka ama waxyaabaha qalabka yaryar ee guryaha la dhigta. Agabka craftiska waxyaabaha la yiraahdo ee yaryar ee quruxda badan ee soo jiidashada leh ee darbiyada lagu dhagsada ee maaragtay miisaska yaryar la saarta ayaa la yiraahdaa. Waxaa jira dad ka shaqaysta oo farshaxan yar oo qurux badan sameeya, talooyin yar oo qurux badan sameeya, waxyaabo yaryar oo maaragtay ay isku xirxireen adigo creativity-gooda ama hal abuurkooda ayay waxay ku sameeyaan waxyaabaha yaryar. Markay waxyaabaha yaryar sameeyaan ayay dadku ay ka iibiyaan. Anigu waxaa macquul ah inay jiraan dhalinyaro ku shaqaysato laakiin lama yaqaano. Marka haddii aad hal abuuri kartid ayaad sameyn kartid waxyaabaha handcrafts-ka la yiraahdo ama decoration-nada waxyaabaha guryaha la dhigtay decoration-ka quruxda guriga ka qayb qaata. Haddii aad sameyn kartid ayaad waqti geli kartid waqti geli. Markaa lacag way kuu soo saaraysaa adigoo gurigaaga iska jooga haddii aad maanta decoration-ka qaabka guryaha loo quruxsado aad baratid alaabaha guryaha la dhigtay ee yaryar ee quruxda badan ee yacni guriga soo saarayo. Waayo derbigan markuu flat iska yahay ma qurux badna laakiin markii hadda boorarka gadaal ku dhegan oo kale marka lagu dhajiyo way qurux badan tahay. So marka waxyaabaha yaryar handcrafts-ka iyo decoration-nada yaryar waqti geli baro kadibna markaasi soo bandhig oo social media marketing-ka soo gal. Waxaad ku soo iib garaysaa ku soo post garaysaa social media platform-yadaada ku soo post garay. Markaas sidaasi ayaa dadku ay ku helayaan decoration-nadaadii crafts-kaagii waxyaabihii quruxda badnaa ayay markaa dadku kaa iibsanayaan. Xataa haddii aad soo saari kartid cadad aad u fara badan waxaad awoodi kartaa in aad heshiis la gashid supermarket-yada dukaamada waaweyn ee markaasi lagu iibiyo badeecadaha kala duwan ayaad heshiis la geli kartaa. Halkaas ayay kastamaradu markaa ka iibsan karaan adigoon u baahnayn inaad waqti badan aad gelisid. Marka taana waa samayn kartaa lacagna waad ka samayn kartaa. Xirfadda afraad ee aan rabo inaan kula wadaago waa xirfad u baahan oo keliya inaad waqti gelisid. Waqti gelinta markaan ku leeyahay waxaa ula jeedaa dad badan ayaa ka shaqaysta. Maqaayado badanaa furan, waxaa furan cafeteria badanaa furan oo laga heli karaa macmacaanka, samaynta macmacaanka iyo samaynta doolshada ama cakes-ka waxa loo yaqaano. Way jiraan waqtiyadan dambe weliba qurba joogtii ayaa waxyaabo badan ku soo kordhiya dalka. Dhammaan gudahaan geyga Soomaalida waxaa wax ku soo kordhiyo qurba joogtii. Macmacaanka, cakes-ka iyo doolshada iyo waxyaabahaas oo dhan haddii aad waqti geli kartid ee aad baratay xirfaddaasi amaba aad garanaysid qaabka loo sameeyo macmacaanka waxaad awoodi kartaa adigoo gurigaaga jooga ama goob ganacsi markaa intaad furatid ayaad awoodi kartaa inaad lacag ka samaysid. Xirfadahan badankooda waxay u baahan yihiin maalgelin u baahan yihiin. Waa xirfado ay u baahan tahay u baahan yahay qofka in uu maalgelin isku sameeyo. Marka macmacaankaas iyo samaynta cake-ka iyo waxyaabahaasi macmacaanka ee la cuno haddii aad diyaari kartid ayaad sameyn kartid. Weliba waxa la isku dhaafay waa hygiene waxa la yiraahdo. Hygiene waa nadaafadda ayaa la isku dhaafay. Haddii aad tahay qof nadaafad badan oo cunadaas macmacaankaas u samaynayo halkuu ku samaynayo dadka la wadaagi kara yacni dadka way jeclaanayaan. Marka waxaad ku dadaashaa hygiene-ka ama nadaafadda aad ku samaynaysid goobta aad ku samaynaysid iyo maaragtay waxyaabaha aad samaynaysid cakes-ka aad samaynaysid sida aad u design garaysid quruxda qaabkaad u qurxisid. Waxyaabahaasoo dhan waxay qayb ka qaadan karaan in xirfaddan aad lacag ka samaysid ee aad kastamara ay heshid. Adigoo gurigaaga jooga ayaa maanta samayn kartaa. Waxaa jira foornooyin aad u yaryar
oo laga heli karo goobaha dukaamada waaweyn laga heli karo oo aad keliya aad u baahan tahay inaad soo iibsatid dan markaasi kolkaaga aad ku bilowdid dan lacag waad ka samaynaysaa keliya hygiene-kaasi iyo customer service-ka inaad baratid sida macaamiisha loogu adeego sida dadka loo dhegeysto sida dadka loola macaamilo sida dadka baahiyahooda loo buuxiyo haddii aad baratid waxaad awoodi kartaa in aad lacag ka samaysid xataa taa waxaad awoodi kartaa in goobaha ganacsiga aad u samaysid inaad u samaysid dukaamada waaweyn supermarketyada waaweyn ee aad kala heshiisid in aad booskan adigu buuxi doontid ee wax soo saarkaaga ama shaqadaada ama cunooyinka ama macmacaanka aad samaysay ay ku iibiyaan maqaayadooda mihradooda ee markaa ku iibiyaan marka lacag ayaad ka samayn kartaa haddii aad heshiis wada gashaan iyaguna faa'iido bay ka helayaan adiguna faa'iido ayaad ka helaysaa kastomarkiina adeeg fiican ayuu helayaa waayo adigii ayaa maaragtay dadkan social media platformskaaga kula wadaagay nadaafadaada cunadaad samaynays disaynada keegada aad samaynays waxaasoo dhan ayaa dadka kuu soo jiidi kara lacagna waad ka samayn kartaa waxaad way sahlan tahay in lacag la sameeyo xaqiiqadu waxay tahay maanta aad u sahlan tahay in lacag la sameeyo laakiin qofka waxaa ka hortaagan waa fikirkiisa anigu saan aaminsanahay qaacidadan aaminsanahay qofka maanta lacag uu samayn karaa xataa soona waxba haysan ayuu lacag samayn karaa laakiin fikirkiisa hal abuurkiisa curintiisa ayaa ka hortaagan iyo cabsida ku jirta marka afartaas xirfadood haddii aad waqti geli kartid ee aad ka faa'iidaysan kartid xirfadda tuubistanimada waa baahi aad u ballaaran ayaa ka jirta maalmaan la shaqaynin ayay reerahu wax ka halaabi karaan maalmaan la shaqaynin ayay maaragtay tubadii jabi kartaa marka booska adiga ayaa buuxi karaa adiga hal qof oo keliya adigoo ah haddii qalabkaaga aad soo iibsatid ee aad dharkaaga soo iibsatid you look professional brother dumar ahaw rag ahaw keliya inaad professional aad u muuqatid ee aad sanduuqaaga iyo alaabtaada kugu jirta aad wadatid ee aad diyaarsan tahay in physicalna aad u diyaarsan tahay mentalina aad u diyaarsan tahay customerka wax alla waxay ku dhahaan aad aqbali kartid tan markaa baayooda aad u buuxisid tan labaad tulista dharka dawaarka arqaalanimada waa fursad gabdhaad u fara badan ayaa lacag ka sameeya gabdhaad u fara badan ayaa disayno cusub soo saara gabdhaad u fara badan ayaa maaragtay fahmay skillskan inay muhiim tahay adigu maxaa kaa reebi kara marka ma garan karo xirfadda kale ee agabka qurxinta guryaha dugulishanada craftiska waxyaabahaasoo dhan waa xirfado aad muhiim u ah oo maanta looga baahan yahay dalka gudihiisa iyo weliba dibaddiisa keliyana waxay ku xiran tahay abuurkaaga iyo sidaad wax ku curisid iyo sidaad kastamarka ula falgashid iyo xirfadda ugu dambaysaan kaga hadlanay cunooyinka macmacaanka waxyaabaha macmacaanka sida keegiska doolshooyinka waxyaabahaasoo dhan inaad si qurux badan u samaysid kadibna sidaas aad dadka ula wadaagtid adigu lacagaad sidaa kaga samaysid maanta waa fudud tahay in lacag la sameeyo laakiin waxaa loo baahan yahay kaliya in hab fikirka la bedelo la dhaqaaqo qof wax qabsan kara wax iska soo saari kara inaad noqotid marka haddii xirfadahan aad dareynaysid amaba aad isleedahay waad ka faa'iidaysan kartaa ka faa'iidayso waqti geli baro kadibna qaabkan kuu sheegay oo keliya u bilow waxaan hubaa inaad wax ka soo saari kartid noloshaada tan reerkaaga aad ka dabbari kartid marka muuqaalka halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa waa inoo muuqaalka xiga waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo